إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم نحريستو ولا لهم صحفيين الصومالية مالين والبلغوا قماضي مقالة مقدشو هدينا نحب هذا الصحفيين الصومالية كوفر أفريقيا سجاسة وحن آد قمر ويسناهي والبهار يولع بدنا عن كموجيننا دلك برير كاي مالين والبا بعض الصحفيين الصومالية اللي ولا كايو شلي وحن مقالة مقدشة سب برير أهله ودلي اللهم نحريسته يوسف فري وهاليي صحافة إن بدنا بها صحافة الصومالية قرب يقعن كسي جريدنا عتما برضه إن بدنا كشقي جري راديو مقدشو أهانا أضي صحافة إن بدنا صحافة إن كدح مقضي وحنو لنا هاي الله نحريستو إسلا الشلي قبل دعي أي دلين كوحا دلياش ورياشة الله نحريسته ولكن محمود بونيسته وها nin suxufiyiinta Soomaaliyeed ku dhex firfircoona hore dhibaatooyin lagu geystay gudaha Muqdisho waan xasuusanayaa sanadihii 2007 in xabsi uu ku jiray dhibaato lagu geystay xaafadda uu ka deganaa shalayba lagu toogtay deegaanka Tawfiiq Allah uu naxariista ayaan leenahay shalay ninkaasi dilkiisa iyo dhammaan suxufiyiinta la xasuuqayo baad suxufiyiinta Soomaaliyeed rikoorka ay rikoor gareeyeen iyo qoraalada iyo muuqaalada ay ka hayaan ay ka mid tahay sida haddaba aad ka arkaysaan muuqaaladaasi waa register aynu register gareynay isla markaana aynu ka qornay kana save gareynay dhibka iyo dhibaatada suxufiyiinta Soomaaliyeed maalin walba loo geysto qaar baa jira hanjabaadiyo kula kulmo wadamada ay joogaan maalin walba la yiraahdo cadow Ilaahay ayaa tahay gaala raac ayaa tahay iyo waxyaabo uu qofkaasi ka argagaxa maalin walba ay la kulmaan suxufiyiinta handadaadahaas waxaynu ku baaqaynaa dawladda ku meel gaarka maalin walba waxa ay sheegtaa inay tallaabo ka qaadayso cidda disha wariyaasha waa la yaqaanaa qolada ay yihiin waa la yaqaanaa qolada u badan yihiin waa la yaqaanaa maalin walba gacan adag iyo bir adag iyo gacan adag aan ku qabanaynaa dawladdu ku dhawaaqaysaa maxaa loo qaban lahayaa ragga suxufiyiinta dilaya maxaa loo soo qaban waayay ninkii dilay Cabdisalaam Xiis Allah u naxariistay maxaa loo soo qaban lahayaa ninkii dilay Abuukar Kadaf maxaa loo soo qaban lahayaa ninkii dilay Fantastic maxaa loo soo qaban lahayaa nimanka hadda dilay shalay xasuuqay walaalahan Yuusuf Faray ninka la yiraahdo Allah u naxariistay walaalkeen bunaystay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun بعض الصحفيين الصوماليين جودها مقدشة كل رقم يضمن أنت كل رقم ودمنا العالم كوحنا كباقينا إن أي أمان كذا أي سجان جعلنا كل شخصان جعلنا يكوقاتان هوك يسود دفاع لهاين إن بدو وحنا كل واقع جرنا كرام باقي جرنا إن قلنك لقود دجالمو عدو والباقي نبي رفض ومد الصوماليين وجيستنا لصوب بندقو لكن دبعتنا دو حتاجن تعدد هذا الشيء وكتلنا بالمحل لقود دليا محل لقود دليا ورياش hadda waxyaabaha aan markaan dib u fiiriyo aan aad uga nahay tirada 25 ay maraysaa wariyaasha hadda maxaa la yiraahdaa inta aan garanayo aan u abtiri karo hebel aan wada dhihi karo 2006 ilaa hadda la dilay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah u naxariisto wariyaasha goobtan ku qoran sida Allah u naxariisto Maxamuud Ali Bunayste VOD ayuu ka shaqeey jiray Nairobi ayuu dhawaan ka laabtay shalay ayaa la dilay magaalada Muqdisho lagu dilay Yuusuf Ali Faray radio Muqdisho ka howlgali jiray wasaaradda warfaafintana howlwadan culus ka ahaa 12 bisha Agoosto 2012 la dilay Muqdisho lagu dilay shalay ahayd Ahmed Abdo Canshuur Shabeelle radio uu ka shaqeyn jiray 24 bisha May 2012 ayaa la dilay Farhan James Abdullahi waxa lagu dilay magaalada gaalkacyo wuxuuna ka shaqeyn jiray radio daljir bishii May ayaa isaguna la dilay labadeedii Mahad Salaad Aadan Shabeelle radio ayuu ka shaqeyn jiray 5 Abriil 2012 ayaa Beledweyne lagu dilay Ali Ahmed Abdi gaalkacyo ayuu ka shaqeyn jiray radio gaalkacyo iyo Puntland bisha March 2012 afarteedii bisha March ayaa la dilay gaalkacyo ayaa lagu dilay Ali أحمد عبدي الله نحرسته أبوكر حسن كذف سومالوين أيو مضحكها بشي فبراير لبضكم يلبيتوا من كسديل لا تك بشي مركي هذا اللي مقدشة اللي قدري حسن عثمان عبدي شبل الراديو يكشخين جري وحنا اللي
sideed iyo labaatanka bishan January 2012 waxaana lagu dilay magaalada Muqdisho Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis wuxuu ahaa wariye in badan ka howlgali jiray warbaahinta magaalada Muqdisho iyo telefishinada waxaa lagu dilay magaalada Muqdisho bishii December 18keedii magaalada Muqdisho ayaa dilkiisa loogu geystay 2011 waxa kaloo la dilay Barqad Awaale radio Hormo oo ka shaqeyn jiray Hormo waxaa lagu dilay Agosto 24keedii 2010 Muqdisho ayaa lagu dilay الله نحرسته شيخ نور أبكي ريد مقدشو أيو كون قلي جري منك وجود هذا ويناء بربهنته اللي قد له أها الله نحرسته أفر إلى وحلا دل أفرتي مي لما كنا يطلعك مقالة مقدشة الكوخ عدو يدلياش يكون دلين وأنا حسيت مدن إنه شافتي من مجلس استيل اللي راضو وبربهنته هروب وش خيجري بس رجع فلا جوه كجرا عبد القفار عبد القادر وحو أها فريلانسي قرح هشام ودتك كل أنت يكمل أها سدحدي إن بشا ديسمبر لغضو كوني سجالكي إن محمد أمين هذا عبد الله نحرز الريدي وشبه الله يوها سدحدي ديسمبر هيسونا قرح وكل أنت حسن زبير سدو كله قرح حسن وكل أنت سدحدي ديسمبر العربية يوم كاميرا مان كأها إن محمود يوسف نينيله نينا وضع شقينا راديو أي كيو كنا كتر سنة يكجري إن أفرتي بشي جولاي لغضو كوني سجالكي أي كوح إن دوشة سركة وقتين إزجوز كأفرت جدينا مقالة مقدشو إن مختار محمد هرابي وحوها هليي إن بدن صحافة دو كجرا قاسمي إذا عاد الشبيلة وحال الدلبيش الجون على بعض كل يسقال كيس ديدي إن مقالة مقدشة يدلياشة عدو جاه كدلن جدا بقرا إن نور موسى حسين وحوها إذا عاد أيكوكي وريك الشقي جري إن لحي لباتنكي بيش مي لبضو كوني سقالك أيها لقود المقالة البلدوينة عبد الساق ورسمة قادعو الله نحرسته صاحب آلي وين أيوها إن راديو شبل أيو كشقي جري بيشي مي لبضو كون إيو سقالك أيها كوحا درياش دلين الله نحرسته سعيد تالي الأحمد وها هليي صحافظات إن بضلنا سعفين تصوم كدح مغدل بيشي فبراير لبضو كوني سقالك أيو كشقو دلين حسن ميو ayaa ka mid ahaa ragga la dilay waxa lagu dilay degmada Afgooye Allah u naxariisto nasteex daahir magaalada Kismaayo ayaa lagu dilay Abduqaadir mahad kaste ayaa ka mid ahaa ragga la dilay 2006 ay bareer lagu dilay Bashiir Nuur Geedi subaxdii Bakaara lagu dilay dadkii joogay area ka dhawaan ka mid ahaa Allah u naxariisto dhamaan wariyaasha ilaa hadda 25 kaas ay marayaan مسؤول كرا هذا وحن كباقيا بعض الصحفيين الصوماليين إن أمن جودا يدبك هيستدر تود إن أمان كودا أتكيان وحول بي أمان كودا يكسو كران إن يكسو كان قعنا يكش قيستان قعنا يسكو دفاعان الله نحرستان لنا هاي وحسوق لوسو جستي صحفيين تلقلايو إن لبعض أقول هذا مقدشة كتاجنا وعيتها qofkan haduu siyaasi uu yahay siyaasadina uu ku jiro kama badbaadaysid qofkan haduu diin sheeganayna kama badbaadaysid wax kale aan yiraahdo ma garanayo Allah u naxariistaan leeyahay dhamaan wariyaasha Soomaaliyeed la xasuuqay inta wariyaasha magacooda ku hadashana waxaan ku baaqayaa bahda suxufiyiinta Soomaaliyeed inaanan maalin walba idaacad loo furin ay ka shaqeeyaan wadanta suxufiyiinta Soomaaliyeed aan laga fiirsan oo kaliya idaacad ay ka hadlayaan بس أمني الصحفي هذا دمانة قاضي كرن وإن هذا قف كاس صحفي هذا شقق جلين هذا قدر النيوز أم بور ومحل هذا إن سوق قدين كرن أم بتبكون نقول كرا بركو حكوا باقي ورياش الصومالية أمان كذا لا كيو وما ستين